بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله قيمها بدن كسو دواada ardaageena maadaama aynu mawduuceeni hore kaga hadalnay qaar kamid ah dabeecadaha dumarka maanta waxaynu isla eegi doonaa dabeecado negative ah oo ay leeyihiin ragga qaar kuwaas oo hadii aad aqoon u leedahay dabeecadahaas gabadhna aad tahay ay ka caawinayso inaad ka fogaato wiilasha sifooyinkan leh hadii si aad wiil tahay dabeecadahaasna aad isku aragto waxay xogtani ka caawinaysaa inaad wax ka bedesho hab dhaqankaas mawduuceenan maanta waxay idin soo gudbinaysaa anigoo ah ayaan jaamac nuux ayaan dhalad ku soo dhawaada nooca koobaad waa ninka markasta isla saxan nooca raggan ah way adag tahay inay qaladkooda qaataan marka ay qaldan yihiin waxayna markasta ku dareensiiyaan inay iyagu saxan yihiin adiguna aad qaldan tahay taas oo dilaysa isfahankii idin dhex mari lahaa nooca labaad waa ninka dumarka badan xidhiidhka la wada sameeya ninka dabeecadan leh waa nin soo jiidasho leh gabadh kasta agteeda haddii aad xidhiidh la leedahay ninka dabeecadan leh waxaad dareemaysaa inaad markasta loolan kula jirto dumar kale qasabna ay tahay inaad ilaashato booskaaga taasoo kugu keenaysa warwar joogto ah iyo xasilooni darro soo noqnoqota nooca saddexaad waa ninka aan ka gudbin mushkiladaha aad hore u xalliseen waa mid markasta dib u fura mawduucyo aad xidheen waa mid markasta jecel inuu ka sheekeeyo khilaafyo aad hore uga soo gudubteen mushkiladda haysata ninka noocan ah waa inuu yahay qof dhinaca xun wax ka eega waa qof aan arkin waxyaabaha wanaagsan ee aad samayso laakiin markasta weyneeya qaladaadka yaryar ee ka dhaca waa nin ay adag tahay in xidhiidh lala sii wado maadaama wax kastoo yar agtiisa ka yihiin wax weyn nooca afraad waa ninka cadhada badan cadhadu waa dareen dabiici ah waxaa jira dad badan oo aad u cadhooda markasta haddana qalbi wanaagsan laakiin mushkiladdu waxa weeye ragga qaar ayaa marka ay xanaaqaan u gacan qaada caaya ama aflagaadeeya gabadha xidhiidhku kala dhaxeeyo waxaad arkaysaa inaad mawduuc yar isku khilaafteen isna uu bilaabay inuu caayo aabbaha hooyada mararka qaarna awowgaagii 11aad inta aanad xidhiidh la bilaabin nin noocan ah isweydii dulqaad ma u leedahay inaad u adkaysato cadhada intaas leeg nooca shanaad waa ninka kaa ogolaaday inaad samayso wax kasta waxaa jira nin marnaba aan kaa diidaynin wax kasta oo aad rabto inaad samayso wuxuu raali ka yahay wax kasta oo aad xidhanayso cid kasta oo aad la kulmayso iyo dhammaan dhaqamada ay tahay inuu ka xanaaqo qofku danaynaya ninka noocan ah wuxuu ku siinayaa xorriyad dhammaystiran heer aad kala garan weydo inaad xidhiidh la leedahay iyo in kale waxaad markasta dareemaysaa shaki ah inaanu wax dana kaa lahayn waxaana kuu muuqanaysa inaanad wax qiimaa ku lahayn agtiisa dhibaatada kale ee uu leeyahay ninka noocan ahi waxa weeye maadaama uu kaa ogolaanayo inaad samayso wax kasta oo aad doonayso isaguna wuxuu samaynayaa wax kasta oo uu rabo marka aad ku canaanato waxyaabaha uu samaynayana wuxuu kuu sheegayaa inaanu isaguba ku xakamayn adiguna aanad xakamayn karin isaga nooca lixaad waa ninka hooyadii u taliso way fiican tahay in ninka ragga ahi uu hooyadii ixtiraamo hadalkeeda maqlo taladeeda qaato laakiin waxa aan dabiiciga ahayn waxa weeye in hooyadii maamusho gebi ahaanba xidhiidhkeena haddii ay hooyadii ka dalbato inuu xidhiidh kula sameeyo wuu samaynayaa haddii ay ku amarto inuu kaa tago wuu kaa tegayaa haddii ay u diido inuu kula kulmana wuu samaynayaa waxaad dareemaysaa inaad xidhiidh la leedahay hooyadii ee aanad isaga la lahayn waxaad dhibsanaysaa inaanu lahayn shakhsiyad gaar ah oo iskeed isu maamuli karta waa laga yaabaa inaad istiraahdo waad bedeli kartaa dabeecadihiisa hooyadiina waad kaga saamayn badnaan kartaa laakiin taasi way adag tahay hooyadii waxay la joogtay ilaa yaraantiisii waxayna taqaanaa dabeecadihiisa oo dhan markastana waxay jihayn kartaa isaga in ka badan intaad adigu maamuli karto nooca toddobaad waa ninka isu arka inuu dhibano yahay dabeecadda ninka lihi waa mid calaacal badan markastana isu arka in cid kasta iyo wax kasta isaga u xun yihiin waa nin aaminsan inay noloshu isaguun ka adag tahay dhibaatada uu leeyahay ninka noocan ahi waxa weeye inaanu ahayn qof hore u socda waa qof aan jeclayn inuu sameeyo nolosha wax dadaala xidhiidhkiinu ma yeelan doono wax horumara noloshiisuna sidoo kale adigana waxa macquula inuu ku niyad jabiyo aad baa u mahadsantihiin